أما اللي مجمعه كوي اللباتن كبيش اللبا سنة كاللبا كون يلباتن يشنتا حقيه قدام بيجي أيان هل كان كوقادا ديجدونا صاحب يال كل يوم النبى أيا كدعضي فرحة كي كوعدا رجعيسدا داعش أيا لجوجا غبطي deegaanka loo yaqaan kobdhaxaad oo hoostaga degmada Ufayn ee gobolka Bari waxaana maleeshiyaadkan gacanta ku dhigay dadka deegaanka iyaga oo ku wareejiyay laamaha ammaanka xubnahan ayaa isugu jira ajaanib iyo sidoo kale Soomaali waxaana kamid ah kuwa ka soo jeedo dadka deegaanka laftigooda gaar ahaan ninkii dhul marka uu ahaa ee dhulka kala yaqaanay ee deegaankana markaas aad u kala garanayay kana dambeeyay weerarkii ciidanka difaaca Puntland lagu soo qaaday Dharjaale kaas oo fariintii ugu dambeysay oo cabsi ah jiray markii ciidamadu ay qabteen soo dhiibay hal Faysal Shaabac Ismaaciil oo qowliyaha waxa sameynaysaa wixii hadda waa warnimada weey warka ka dajiyo qoryaha ka dajiyo waa khaldan haydii qoryaha ka dajiyo soo soco waxa xasatay waxa sigi af saxan jiray weey dig alaabta lug dig soo soco tuur wax yar tuur iska dareeyo qabiilku waa la tacaaruf ninkan wuxuu ka soo jeedaa sida uu isagu sheegay beesha cawliyahan cali Salebaan ayuu ka soo jeedaa gacanta ayuu ku jira waana ninkii dhul yaqaanka ahaa ee kooxda Daacish soo hagay sidoo kale wuxuu kamid ahaa raggii Daacish keenay Dharjaale maalintii ugu horeysay ciidamada difaaca Puntland ee markaas ciidanka ay qarxiyeen ciidanka sidaad maqasheen oo maqlayseen waanu jarjaraynaa ayay dhaheen ragga dhul yaqaanka ah ee Daacish hadda ka tirsan ayaa waxa la soo warinayaa in ay ka soo carari rabaan oo meel ay soo maraan ay leeyihiin waxayna ka baqayaan in ciidamada difaaca Puntland ay qaarijiyaan sida uu sheegay ninkan waxaana soo baxaysa xog yaab leh oo ku aadan firxadka Daacish oo durba bilowday midba meel laga soo helayo ragga dhul yaqaanka ay ka tirsan Daacish ayaa tirsan ninkan wuxuu kamid ahaa kuwa ugu muhiimsan ee Daacish dhulka kala barayay ee kala yaqaanay naga kale ciidamada difaaca Puntland waxaa loogu fatwooday in bisha Ramadaan maadaama ay jihaad ku jiraan ay afuri karaan mawdiinka deegaanka Puntland culimada ugu caansan ayaa arintaasi ka hadashay waxaana ciidanka dagaalka ku jira la sheegay oo ay culimadu ugu fadwoodeen in ay ku jiraan cibaado kale Ramadaanka marka laga soo tago way cibaadeysanayaan jihaad ayay ku jiraan ciidankuna waa ay afurayaan bisha barakaysan ee Ramadaan maadaama ay jihaad ku jiraan cadow halis ah ay la dagaalamayaan dagaalkuna uu daacad ka yahay ciidanku oo inay natiijo ka dhaliyaan ay doonayaan waxaan culimadu ay sheegeen in aan la yeelayn in qof dhaho ama askar dhaho ama saraakiil ay dhahaan waana soomanahayo ma dagaalami karo balse loogu baaqay inay afuraan oo cibaadadu ay ku jiraan ma ahana tan Ramadaanka dib ay ka qallayaan balse hadda ay cibaado dhab ah ay ku jiraan iyadana waan idin la wadaagi doonaa labada cibaado isdiidi mayaan ninna kuma cudu daaran karo dadaalkii iyo dagaalkan ku jiray labadaas qodob ayaan ka hadli doonaa dhamaantiin muuqaalkan la gareeyo share gareeyo YouTube kana ku soo biira aad baad u mahadsantiin haddaad xasuustaan waan idin sheegay in ciidamada difaaca Puntland maalinta ay ka tagaan qurac gaatir oodan ay aadaan in firxadka ajaanibta Daacish uu bilaabanayo xubno fara badan ayaa goostay qaybtood waxaa la ii sheegay in ciidamada ammaanku ay isaga dhigeen kuwa firxad ah oo ay isqarxinayeen lana qaarijiyay kuwa kalena daacad ayay ka ahaayeen firxadkoodu oo way isa soo dhigeen iyadoo xogtii ugu yaabka badnayd uu bixiyay mid kamid ah ajaanibta Daacish dadkii la shaqeyn jiray ee dhul mareenka ah iyadoo laba xubnood oo kale ajnabi ah iyo ninkan markaas Soomaaliga ahba kana soo jeeda dadka deegaanka lagu qabtay deegaanka kobdhaxaad ciidamada ammaankuna ay waraysateen soo ciidan ba soo kala jiray soo qaada waraamisa wax way ku jirtay buurahan 4 sano iisoo kaxay waa jarjaraya xagayge داعش والبابا لا رسول إليو مانيكا أجنبي إسهارو ساديو خواري ولبا كدعدي ninkan wuxuu kamid ahaa dadka haga ama dhulka u kala yaqaan taaka buurleyda u yaqaan
sida ay sheegeen xubno ciidan oo markaas la jooga waxaana uu shaaciyay xog yaab leh oo ka taagan xilligan daacish waxa uu xaqiijiyay ninkan in daacish inta ajnabiga ah inta isdhiibi kartana ay doonayaan wada ay ku baxsadaan oo ay ciidamada difaaca Puntland markaasi ay isugu dhiibaan halka xubnaha kalena mayalka adagna ay dhaheen waanu dhimanaynaa oo meelaan aadna ma haysano xubnahan mayalka adag ayaa la sheegay inay yihiin kuwo dambiyo waaweyn galay oo markaas doonaya in ay ugu dambeyn halkan ku baqtiyaan oo ciidanku ay dilaan sidoo kale waxa uu ninkan sheegay inay diyaariyeen daacish xubno badan oo isqarxiyayaal ah kuwaas ciidamada difaaca Puntland shalayba ay ka hor imaadeen xubnahaas oo la qaarijiyay xalna loo helay dhageerta ismiidaamiyayaasha oo ciidanku kaartooyin dagaal oo halis ah ay ku wajaheen waad u jeedaan nimankii waa farxad waa gabagabo waanaga idiin sheegay maalintii haddii gaatiri oodan la gaaro nabaday daacish firxadkooda ayaa bilaabanaya waayo meel dambe oo lagu dhuunto ama buur dambe oo lagu dhuunto ma ay jiri doonto gobonnimo ayaa ka dhacday ciidankeenu jihaadka xaqa ay ku jiraan ayay muujinaysaa in maalinta ka dambeeya ay guulo xaqiijiyaan dhanka kale culimada deegaanada Puntland gaar ahaan culimada ugu caansan oo ka mid yahay sheekhan ayaa fariin fadwa ah u diray mujaahidiinta ciidanka Puntland ee ku jira dagaalka waxaana loogu baaqay in ciidanka bisha barakaysan ee Ramadaan maadaama cibaado ay ku jiraan ay iska afuri karaan askarina aan laga yeelayn inuu dhaho waan soomayaayo waan daalanahayo waan raadanahayo gaaja hayso oo dagaal ma gali karo ay khasab ku tahay in dagaalka ay galaan sheekhu muxuu daliishaday ila dhageysta ognahay reer Puntland ee dagaal bay ku jiraan Ramadaanna waa soo socotaa soonku waa cibaado Ilaahay lagu caabudayo dagaalka lagula jiro daacish wax la midana isaguna waa cibaado labada cibaado isdiidi mayaan ninna kuma cudu daaran karo dadaalkii iyo dagaalkan ku jiray soon baa soo galayo waa nasanaya ama gurigan ku soomaya cid allaale cidii dagaalka ku jira cibaaday ku jiraan nabigana waxa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ayaantii fatxu makkah asxaabta inuu ku yiri radiyallahu ta'ala anhum umira an-nas bil fidri xadiiska waxa warinaya waa sunan Abu Daawud ayuu ku yaala iyo musnad Ahmad labadaba riwaayaad kala farabadan xadiisku waa leeyahay umira an-nas bil fidri aam al-fath wa qala taqawu li'aduwikum baroo kale markii la gelayay magaalada Makka ileen dagaal inuu dhacaan laga baqay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray dadkii inay afuraan cadowgiina ayaad u xoogeysanaysan dadka dagaalka ku jira dagaalkan waa dagaal xaq ah maxaa yeelay naf iyo maal iyo maxaan ku raahdaa dal iyo dad baa lagu difaacay wayna ognahay nimankan 10 sano ay dadkaas naftooda dilayeen ciday doonaan xoolahooda dhacayeen maxaan dhibaatooyin farabad amnigii ay kharibeen wadan in laga qox ay sabab u noqdeen dagaal xaq ah wayna wada ognahay nusuusta ku soo aroorayna horay ayaan meeshan looga jeediyay iyo meelo kalaba marka waa loo afuraya qofka hadaan si kale dagaal ku gali karin waa loo afuraya marka culudaar noqon mayso waa soomayaayo gurigayga baan iska aadaya sidoo kale dadaaladii kale oo la waday oo reer Puntland ay wadeen iyaguna meesha ha ka wadeen waa xaqiiqo weey gobonnimo ka dhacday culimadaas oo kale baynu u baahanay reer Puntland laakiin si culimo ka sheekeynaysa gabdho iyo show iyo ka sheekeynaysa daacishna ka baqaysa kuwaas iyaga in maxkamad la saaro u baahan waa kuwaas culimada reer Puntland ee ciidankooda la dareenka ah ee shacabka iyo ciidankoodaba indhow ah ee mataqaanay fadwooyinka loo baahan yahay ciidamada u jeedinaya guul iyo gobonnimo taariikhda ayaa baal dahab ka gashay daacish diinta way ka been sheegeen laakiin ciidamada difaaca Puntland ayaa ka rusheegay haday daacish diinta ay ku dagaalamayaan ay dhab tahay ma aysan soo qaateen qalabka macdan qodista ma aysan soo qaateen jihaadna kama aysan carareene buurahaas qaxbyada ah ma aysan galeen naftoodana ma biimeeyeen oo waxay u dagaalami lahaayeen sida mujaahidiinta Xamaas weli ma aragteen qof Xamaas ka tirsan oo isqarxinaya oo naftiisa haligaya maya ee Xamaas kaartooyin ayay u dhigaan cadawga oo ah in cadawga ay miinooyin meel u dhigaan oo ay ku qarxiyaan
laakiin se lama hayo taariikhda qof xamaas ka tirsan oo intuu mihna isku soo xiray naftiisa biimeeyay oo isqarxiyay iyagoo yuhuud la dagaalamo daacish laakiin laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah qofle ayay isku qarxinayaan qof masaajid ka soo baxay hadda soo tukaday ayay dilayaan alla maxay diinta ka been sheegeen hooyo maskiinad ah oo wadada caana ku gadanaysa ayay qarxinayaan nacalad idinku dhacday nacalad idinku dhacday maxay diinta been ka sheegeen dhul aysan lahayn ku dagaalamayaan haddana qalab macdan qudisa bay wataan oo buurahaasay faganayaan uraniumtaasi bay faganayaan iyo dahabka qaniga ah bay faganayaan oo waxay u iibgeynayaan suuqyada kala duwan ee caalamka imaanka alla idinka baan la isfahaniye waa la isaga daba tegay waa kuwaas culimadaynu u baahannahay ciidanka difaaca Puntland ay ku sugan jiidaha maadaama cibaado ay ku jiraan afurkooda dib bay ka qaleynayaan laakiin waa inay afuraan cadowguna waa nafla caali insha Allah gool iyo gobonimo aan rajaynayaa ciidanka difaaca Puntland